السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa daalacan media daawadayaal meel kasoo joogtiin waxay dhaleenahay kula wanaagsan. xubinteena dhacdooyinka la yaabka waxaynu kusoo qaadanaynaa haweeney ku sayrtay caanaha naaskeeda nin kormeer ka ahaa train. haweeney u dhalatay dalka Jarmalka ayaa la sheegay inay caanaha naaskeeda ay ku buufisay nin kormeer tikir ka ahaa train ay ku safraysay sida ay sheegeen booliska dalkaasi. haweeneydaasi oo kooxda jir ah ayaa la sheegay inay iyada nin kale oo ay saaxiibo ahaayeen tikid laan ay soo raaceen tareen ku sii jeeday magaalada lagu magacaabo Gelsenkirchen oo ku taala galbeedka dalkaasi. kormeeraha ayaa la sheegay inuu ka codsaday lamaanihii inay soo bixiyaan tikidhadoodii, balse markii ay ku guuldareysteen inay tikid la soo baxaan ayuu u sheegay inay ku degi doonaan busteejada ugu horeysa ee uu tareenka ku hakan doono. qoraal ka soo baxay booliska Jarmalka ayaa lagu sheegay in markii uu kormeeraha ku wargeliyay arrintaasi inay haweeneydii naaskeeda ka soo listay caano kadibna ay wajiga kaga fadhisay kormeerihii tareenka ee weydiiyay tikidka. tareenkii istaagay busteejada ayaa waxaa la sheegay inuu baxsay ninkii iyada la socday, balse iyada waxaa gacanta ku dhigay booliska oo loo yeeray. waxaa la sheegay in ciidanka ay la dagaashay balse lagu guuleystay in la katiinadeeyo loona gudbiyo saldhigga booliska. warar goordaba soo baxay waxay sheegayaan in haweeneydaasi la sii daayay iyadoo aan wax dacwadaha lagu soo ogin oo ku aadan inay tikid laan ku raacday tareenka. waxaa kaloo aan lagu soo qaadin ama lagu dacweynin caanaha naaskeeda ay ku fadhisay kormeerihii tikidka ee tareenka la socday. daawadayaal xubinteen la yaabka waa naginta waxaadna kala socoteen daalacan media.